asalaamu calaykum kusoo dhowaada mowduuceena aynu kaga hadli doonno xeerka ciisaha iyo cadaaladda amba legal systemka. xeerka ciisaha constitution, cadaaladda justice system. xeerku waa wax bulshadu ku heshiisay inay isku xukumaan, kaasoo ah cadaalad, amni iyo dhammaan arrimaha bulshada. hirgelinta sharciga iyo u hoggaansanaanta cadaaladda justice system waxay ka bilaabataa aaminaadda xeerkii lagu heshiiyey. maxaa u dhexeeya cadaaladda xeerka ciise iyo legal systemka dowladaha casriga ah? sharciga iyo kala dambeyn, law and order. cadaaladda iyo xeerka ciise legal system. cadaaladda dunidan casriga ah waxay ku dhisan tahay 3 tiir: booliska, dambiiluhu soo qabtaa; jiij amba xaakim, dambiiluhu xukumaa; prison amba xabsi, dambiilaha lagu xidhaa. taasi waa sistamka dunidan casriga ah. cadaaladda xeerka ciise waxay ku dhisan tahay 3 tiir. maadaama uu boolis dadka soo qabta uusan jirin miyiga, waxaa boolis u ahaa anshaxa amba kood moralka inuu qofku runsheeg yahay, doorsooni iyo dulqaad uu leeyahay, ka fogaado dilka, dhaca, kufsiga, uu naftiisa xakameeyo. taas ayaa boolis u ahayd. xaakimka, jiij, maxkamadda cadaaladda. xaakimka sifooyinkiisa: inuu xeerka yaqaano, inuu alla ka cabsi leeyahay, inuu iimaan iyo qiraal eegayo evidence, inuu qaadan laaluush, inuu basaas ahayn, inuu xeerka buuxinayo xaagaana ka tegayn. taas waa xaakimka sifooyinkiisa. xabsi, prison, open prison, xabsiga furan. maadaama ay jirin xabsi dhisan miyiga, qofka waxaa laga soocayay bulshada iyadoo loogu baaqayo inaan lala macaamiloon, inaan loo guurin, inaan wax tala ah lala yeelan. dambiiluhu bulshada dhexdeeda ayuu ka noqon jiray tuke barcad oo ruux walba farta ku fiiqo. taasna maskaxiyan ayay u dhaawacaysa, kana adkayd xabsiga casriga ah ee dadka lagu xidho. intaas ayuu ku eegyahay mowduuceenna. wixii aad ku kordhinaysiinna komanka hoos noogu reeb. mahadsanid.